cudbu waxa ku meel mariyeen miisaaniyad sanadeedka 2010 taasi oo maalmihii ugu dambeeyay golaha wakiilada ee Soomaaliland hortaalay warbixinta waxa amuurtaasi ku eegaysa wariyaha Sagal Mustafa Xasan Nuur oo goobjoog ka ahayd fadhigii maanta ee golaha wakiilada oo gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa mudanayaashu ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2010 xeerka miisaaniyadda qaranka xeerka doorashada madaxtooyada oo ay kaabis iyo wax ka bedel ku soo sameeyeen gudiga doorashooyinka isla markaana gudiga arrimaha gudaha difaaca iyo nabadgelyadu ku soo sameeyeen kaabis iyo wax ka bedel waxa kale oo uu goluhu fadhigan ku ansixiyay xeerka ururada aan dawliga ahayn sidoo kale gudoomiyayaasha labada gudiga dhaqaalaha iyo gudiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada xildhibaan محمد حاجي محمود عمر حاشي iyo سعيد علمي روبله ayaa iyagu ka waramay xeerkani lagu jiro xilli doorasho waxay soo jeedinaysaa gudidani in qofku go'aan degdeg ah ka gaaro waxa laga yeelayo miisaaniyadda qaranka 2010 intaan waxay saarada soo jiro komishanka iyaga soo falanqeeyay iyaga eegay iyaga runtii waxaa laaliyo wixii ugu keliya oo ka saaray iyaga ay soo xareeyay xukuumaduna waa soo noqday dawladda ku hay waxa fadhigan maanta goluhu cod aqlabiyada ku meelmariyay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cismaan Aadan fadhigan maanta ee golaha wakiilada ayaa waxa ay mudanayaashu ka ansixiyeen afar xeer iyadoo gabagabadiina uu gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro uu sheegay in uu goluhu gali doono 9 wiil oo fasaxa